kow ودمان ويعينه ناستا تضباط كانوا مليون كو قادنين مدح بانو لا سocodeen waxaanu ka door bidnaadeen lacag dareenka dadkayga iyo shacabkayga aanu ka door bidnaniyo dadka maanta intaan la aasin dadkoogii laayay aan raacino aan xoreyno xaan u arno gaashaandhigeen iyo hadii geesi aan nahay diidi mayno geerida gumaysigana ma ogolin gadu bursiyo inaynu dadkeena barbar istaagno iyo deegaankeena iyo dalka aynu leenahay tan ahantii noo dhalinyarada ee dahabka jooga buuraha jooga maalintii ma aha buuraha la joogayay waa maalintii qoriga halkan waxa fariin uga dirayaa ciidanka dhalinyarada ee dahabka jooga buuraha jooga maalintii ma aha buuraha la joogayay waa maalintii qoriga in la iska xereeyo saacadaha in nin walba hawshiisa u dhigo halkuu jooga ka soo dhaqaaqo ma aha maalintii la raaxaysanay la shaqaysanay ma aha dadkiina la dareen noqda ciidankiina la dareen noqda dhammaan waxaan doonaynaa dhammaan nin kastoo gada bursi meesha uu joogo ha ka soo dhaqaaqo inuu qarankii aan la joogno ciidamadii qaranka ee ka soo baxay aan la dareennahay dhammaantiina la dareen noqotaan dhalinyaradiina iyo maatida lagu laynayo boorama ninka dee maanta shaqaysanaya meel joogow maalintii nin ragii seexanaya maaha doqonna looga sheegi maayo waxaan u sheegayaa dhammaan gada bursi meel kastuu joogo ha soo qaato ha ka soo dhaqaaqo halkuu joogo baan u dirayaa ciidanka ka tirsan ciidamada kumaandooska danab iyo gorgor iyo nisa dhammaan ciidan wixii federaal u shaqeeya ee gada buursiya waxaad leeyahay nimo yahow gobolkii awdal foolxumaa ka jirta maatidiinii awlaadiinii mustaqbalkiinii baa lagu ciyaarayaa waxa weeye haddaad mataqaanaan federaal difaacayseen oo aad khawaarij iyo al-shabaab ka difaacayseen maanta khawaarij cusub baa ka bilaabantay gobolkii awdal oo maatidiinii ku tumanaysa waxaan idin leeyahay warniyahow khawaarijtaasi intood ka imataan tan gobolkiina ka dilaacday gobolkiina idinka baahan inaad u hiilisaan oo aad garab istaagtaan tababarkiinana aad ku difaacdaan dalkiina waxa weeye dhalinyarta reer awdal wixii gada buursi sheegta ilooba ilaniyo halkaasi gobolka awdal ha iskeeno maanta maaha maalintii qof walbo qaanshaanqaadi waxa xafid joogi lahaa waxaan la dareennahay dadkayaga iyo maatidayadii suuqooga iyo bartankooga xabadda lala dhacayo xabadda nool lala dhacayo gada buursi waa maalintuu midoobayo isagu isku tashanaya weey waa ciidan hadday tahay iyo hadday mas'uul kala tahayba waxa loo baahan yahay in gamcaha la isqabsado oo laga dhiidhiya waxaasi waxaanan sii qaadan karin oonaan sii uga sii xaafadaha ka sii joogin karin maaha waxaan u diyaarnahay inaan waddankayga iyo dadkayga iyo dunyadayba difaacno labadii maalmood u dambeeyay waxaynu u taagnay duqaynta iyo dhiig raacinta shacabkeena iyo ubadka iyo maatida iyo hooyada aan waxba galabsanay u soo baxday mudaharaadka salmiga iyo inay qadiyadooda ku difaacaan tusaana inaanay diyaar u ahayn ama aanay ogolayn in xeer ciise iyo dhul ciise leeyahay midna aan lagu tilmaamin degmada Saylac ama gobolka Salel waxaan baa u dirayaa dhalinyarada gada buursi ee ciidanka ee ka tirsan jabhadda gacan libaax waxaan leeyahay ilma adeerayaal maanta oo aynu joogno dunia casri ah qaadan mayno gudnimo waxaynu u baahannahay inaynu dadkeena barbar istaagno iyo deegaankeena iyo dalka aynu leenahay tan ahantii noo ee jabhadda gacan libaax hantii nooma ah waxaynu u baahannahay difaaca dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena xeebta gobolka Salel iyo guud ahaan gobolka Awdalba cidda dambaabta waa inaga dalkeena iyo dadkeena u baryamayno jabhadda gacan libaax waxa kale oo baa u dirayaa inamada siyaasiyiinta isku sheegaya ee u shaqaynaya nidaamka goon isku taaga ah ee Soomaalidiidka ah ee u haysta inay dawladdu adeegayaan war waxaad u adeegaysaan waa dana cid kale dadkiina intaanay toobadu idinka dhicin dadkiina kaalay la dareen noqdo difaac dhulkiina horta aan hadalka badin maayo anu waxaan nin ciidanka qaranka ah gaar ahaan ciidanka kamaandoosta laba fariimoodna waan dirayaa mid waxaan u dirayaa ciidanka nin kastoo gada buursi oo ciidanka ku jira oo milyan iyo 500 ku daawanaya dhibta dadkiisa loo geysanayo ee shacabka inama yaroo ciidan beeleeda ay dadka suuqa dhexdiisa ugu leynayaan in ariyun halkiisa joogin meel kastuu joogo ka soo dhaqaaqo mid kalena waxaan farayaa dadka boorma jooga dumarka ninka 20 jir ay ku dhex arkaan suuqa boorma ha gubaan yaana nin joogin halka nin kastaba meesha uu dagaal ka socdo ha iskeeno Saylac ha iskeeno ninkii aan qori garanayna shacabowna annaga laba cisho nigu barayna tiyari iyo practicalba ha iskeeno kaasina
anagu waxaan ka tirsanahay ciidanka ilaalada xeebaha saldhigga labaad ee Saylac maanta laga bilaabo laakiin kama tirsanaanayo dadkaygaan la dareenhay waxaan ku faraxsanahay maanta in ciidankii qaranka oo dareenkoogu soo baxay ila socdaan tolkayga bursimid baan leeyahay tolkayga bursi waxaan leeyahay in kasta oo 20 jir ka weynow war maanta gunnimo qaadan mayno in kasta oo ciidanka qaranka ku jira waxaan leeyahay oo gada bursiya shacabkaagii shalay ilaa daraad waxaan u taagneed halka xasuuqii ka dhacay dhakhtaradii in la duqeynaya xataa hadda gaadhi waa nin kastoo damiirlow cadhaannu hadli kari laanahay nin kastoo damiirlow war dadkaa maanta intaan la aasin dadkoogii laayey han raacinno hana xorayno xaan gu aarno hal xabbaan ku darayaa oo kale wakaa kaarkii ciidanka aan ku lahaa anigu halkaabaan ku tuuray dalkaygana waan difaacayaa waana u dhimanayaa allahu akbar magacaygu waa yaalo tubaa eegas ciidan qaran waxaanu halkan kaga dhawaaqanaa jabhad cusub oo hadda u baxday waxa weeye xeebaha aba dhulka waxa weeye xaaladda aba waxa weeye dhulqaadashada ah ee hadda waxa weeyaan ay dhulboobka loo sameeyey hadda annagu xeer ciise iyo wax ay u baxsan tahay ma jirsaniyo waxa weeye 700 kiiloomitir waxaan uga dagaalamayay sool iyo sanaag waxa ay qarannimo inay maanta waxa weeye jabhadda gacan libaax waxa weeyaan ay ciidankay dadkaygii shacabkaygii maatidii iyo waxa weeye ay halkan ku layso oo meydkooga waxa weeyaan la kala guro aanu xataa daawooyinka naga dhamaadaan waxa weeye waxaanu dul qaadanana ma aha qolyaha ciidanka fariin baa u dirayaa meel kastay joogaan meel kastay wadanka waxa weeyaan wadanna odhan mayne meel kasta ay ka joogaan deegaan kastay joogaan bari ilaa galbeed waxa weeyaan waxaanu leenahay waniimo yahow niyo wada arkaysaa dadkiina toddobaadkan milyan ku qaadanayno madax baanu la soconayn waxaanu ka door bidnaadeer lacag dareenka dadkayga iyo shacabkaygaanu ka door bidnayniyo waanu u adkaysan weynay waanu u joogi weynay waxa weeyaan la dareen baanu nahay maahane halkaa haddii xataa nagaga dhacayso waxaanu yeelina maahaniyo waxaanu idin leenahay markaa ilma adeeraya haddaad rag iyo rabbiba garanaysaan dadkiina kaalayoo la dareen noqda iyo mooradeeda lagu leenayo magaalada Boorama cirro madaxweyne cirro waxaanu moodaynay madaxweyne qaran oo Soomaaliland ayaanu moodaynay haddii gobolkii Salal iyo Saylac shalay u bixiyay bari toolana awdal bixis uu leeyahay yeeli mayno waxaanu leenahay haddii aad Salal bixisay noqon mayso taayada noqonayso hooyada futada ka wasbaanu leenahay waxaanu soo gabagabootay ciidan iyo dawlad iyo waxa soo gabagabootay laga bilaabo imika dawlad gaar ah sameysanaynaa wax dawlad la yiraahdo oo halkan ka talisan ma jirto